taariikhdu markay ahayd 14 bishii 12 2019 waxaa dambi ka dhacay magaalada Wajaale askari booliiska ah ayaa si wada kaca isagoo garashadiisa iyo maankiisa leh wuxuu u dilay marxuun ayuu halka ku dilay Soomaaliland ciidanka booliisku gacanta ay ku soo dhigeen ninkii faldameedka geystay iyo labadii askari ee la socday ee burcadnimada geystay iyaguna way xidhan yihiin waxaana markiiba loo gudbiyay xabsiga dhexe Hargeysa askarigii dambigaasi galay waa qiraal sida uu qabo qodobka 68 ee xalkaabka ciqaabta waxaana kiiskoodii loo gudbiyay maxkamadda iyo xeelaaninta awood dawla si degdeg ah ayaana loo horkeeni doonaa ciidansadii falkaasi geystay oo maxkamadda lagu horgeeyay iyadoo lagu qaaday dowladda dambiga u geystay markii dilku dhacay ka bacdi waxa Wajaale ka dhacay banaanbax ay dadweynuhu sameeyeen hase yeeshee ciidanka booliisku waxay ka hortageen oo ay si adag u xakameeyeen si aanu magaalada shoobrahaasi ugu faafin magaalada Wajaale oo ah magaalo ganacsi dadkii shoobraha sameeyay oo aan cid kalena uga faa'iideysan kula soo dhaxdhoban maadaama oo ay tahay meel ganacsi oo ah isha Soomaaliland ay ku hayso si adag ay uga hortageen taliyaha ciidanka booliisku si adag ayuu u amaanay ciidankii booliiska ee saldhigga Wajaale ee sida xilkasnimada leh ee waaya aragnimada leh waxa kameeyay banaanbaxaasi ee ku faafi lahaa magaalada isagoo banaanbixii socdo ayaa niman ka tirsan ciidanka booliisku waxay farasaar ku sameeyeen qof dumar ah oo ka mid ahayd kuwii banaanbaxa sameeyay iyadoo baraha bulshada si khaldan loogu faafiyay falkaasi taliyaha ciidanka booliisku wuxuu markiiba amar ku bixiyay in la soo qabto ciidankii farasaaray islaantaasi waana la soo qabtay way xidhan yihiin waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda iyo xeelaaninta awood dawla qaadista dambigaasi taliyaha ciidanka booliisku mar kasta oo qudbad jeedinayo ama ciidanka la hadlayo haday noqoto af ya haday noqoto qoraal wuxuu ciidanka booliisku ku booriyaa inay ilaaliyaan xuquuqaha dastuuriga ah ee ay muwaadiniintu leeyihiin sida ay qabaan qodobada 25 26 27 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha ciidanka booliisku wuxuu si mugle u amaanayaa dadweynaha reer Soomaaliland ee xalaasha ah ee sida xilkasnimada leh